shirkan jaraa'id oo maanta qabtay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiyiga ee goboladan Awdal iyo Salal waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan howlaha shaqo ee wasaaraddiisa ay ka hayso goboladan Awdal iyo Salal. isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiyiga Salewaan Xasan Xadi waxa uu ugu horeyn ka hadlay howlaha waxqabad ee wasaaraddiisa muddooyinkii ugu dambeeyay ee ka waday goboladan Awdal iyo Salal. intii aan joogay waxyaabaha la taaban karo ee aan qabanay waxa ka mid ah in aan xafiiskii aan demarcation ku samayno xafiiska wasaaradda ku dhex yaala magaalada gudaheeda isla markaa waa la dhisay 1954kii waa laba maqsin marka magaalada ku dhex yaalo dhulkii waxa landscape baa dhacay dhulkii waa la boobay taas waxay keentay markaa in dhulkii dawladda la soo jeesto markaasi aanan loo boobin waxaan demarcation ku samaynay in xuduudihii wasaaraddu ay lahayd aan temporary shelter ku samayno dee mustaqbalkana waxaan sugaynaa in dhismo loo sameeyo waxa kale oo aan soo celinay saddex seere oo markii hore gacanka dawladda ka baxay lama soo celin karo laakiin inta aan niri bacdo la gaari karaa saddex seere ay gacanka dawladda ku soo celinay waxaan u samaynay dad guddiga oo deegaanka aan ka qornay oo ilaaliya xeer hoosaadna aan u samaynay oon ku kontrolno waxa ka mid ah buurta libaaxley oo runtii iminka ka hor naga caawin jiray hay-adda jarmalka jiye oo ah hay-adda keliya deegaanka shaqaysay gobolka degan kaynta jufaad oo aan soo celinay siday u dhannayd guddina aan u samaynay runtii waxa kaloo iyadana ku jirtay meel qorqor ama cile oo iyadana ahayd meeshii saddexaad ee aan iminka gacanta ka qaadnay gacanta soo celinteeda. sidoo kale isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiyiga waxa uu ka sheekeeyay baahiyo ballaaran oo uu sheegay inay wasaaraddiisa soo food saartay taasi oo uu ku tilmaamay inay habacsanaan ku keeni karayso howlaha shaqo iyo wasaaraddiisa ka hayso goboladan Awdal iyo Salal. ganacsigii ayaa wuxuu noqday iminka in labada eeriye ee keliya dadku ay ka ganacsan noqoto waa ugaadha iyo dhuldaaqsimeedkii oo laga dhigay dhul beereed aan u bixinay beeraha washa kuwaasoo loogu talagalay in ninka oo keligii uuna ku ekaado inuu dhuxul ka shidan karo marka waxyaabahani sababay baan daraasad baan samaynay waxyaabahan hay-aduhu ay ugu bixiyeen waa IDB internal displaced peoples ayaa lagu talagalnay inaan bal ogaano waxyaabaha soo barakiciyay waxaan ogaanay dadkii xoolo dhaqatadii in markii laga ootay meeshii ay xoolaha u daaqsin geyn lahaayeen inay naftu ku kalisay markaa inuu IDP noqdo magaalada wiimaado marka waan soo xirxinay dad badan oo arkana la qaatay way jireen guddiyada ka sameeyay deegaanada laakiin qaar naga horiyay way jiraan waan soo qaadanay sida TV-ga ka doontaan muuqaalka iyo hawlgalka ciidanka booliska iyo wasaaradda iskaashanaya waxaan soo qaadanay dad badan oo aan ugaadha ku soo qaadanay dad badan oo dhulka ay ooteen oo in wadooyinkii xoolaha furan la diiday dad badan oo soo qaadanay way jiraan ilaa heer qarana oo kaga caawinaya dhibaatooyinka deegaanka gaar ahaan camuud hadda laga guro shirkado Djibouti ay ka guraan dooxa baniisle ilaa imikana aan lahayn sifa sharciya oo ay u guranayaan arrintaa marka qayladhaadu way jirta oo ilaa heer qaran baa la qaylinaya laakiin waxa weeye haddana meesha uu taban ku dhaafin weydo waxa weeye dhaaf karbeys waxyaabo badan oo sida aad sheegayso aan wax ka qaban kari weynay oo aan gaari kari weynay way jiraan waxaan sababay transportation-kii aan ku gaari lahayn gaadiidkii hawlgalkan imika waxaanu isticmaalayna gaarigii booliska howlo badan baa waxaa yirmay intii aanan isticmaalaynin wax kale iska dayay 4 nin ee booliska ku raacay shidaalkoodii wixii oo dhan waa dushaada adigina haddii aanad haynin wax noqonaysa markaa xilka ku haya awgeed inaad u qaamudo markaa qaabteeda waxay yeelanaysaa xal aan la dhaafi karin daas way markaa meelo badan aan u gaadho. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.